waxaa jiray beri neel yar oo aad u oontay markaasee istiri orodoo harada biyaha ka soo cab markii haradii ay timid ayay waxay ugu timid shabeel taagan marinkii harada neeshii yareed oo cabsanaysa ayaa waxay shabeelkii ku tiri fadlan waan ku baryayaaye ii bannay biyaha aan cabbee aad baan u oomanahaye maadigu ahaa kii i caayi jiray kaliishii dhoweyd oo dhan neeshii yareed oo yaaban ayaa ugu jawaabtay shabeelkii kaliishiiba ma aanan dhalan ee gugaan ayaan dhashay shabeelkii oo aan ku qancin jawaabtii neeshi bixisay welibana sii kordhiyay caradiisii iyo xanaaqiisii ayaa mar kale hadal kulul ku celiyey neeshii oo yidhi haddaba aabbaha ayuu ahaa kii i caayi jiray kaliishii dhoweyd oo dhan aabbahay aniga ayaaban jeclaan lahaa inaan ogaado kuu yahay run ahaantiiba maba aqaanaba aabbahay shabeelkii oo giirka iska kiciyey oo ay caddahay inaan hadal maraynin haba yaraatee doonayna inuu garwaaqsado doodda neesha ayaa intuu sii karay yeenyaha horena dhulka ku xoqay isagoo qaylihiisa waxaan isku daraya iyo hanjabaadihiisii sii wata yidhi adeerkaa miyuu ahaa haddaba haddaa sii sheeg neeshii oo argagax iyo baqdin naftii u timid wadnaheediina bugbug leeyahay awgeed codkii ka sii laciifay lugahana dhulka ku hayn weyday miisaankiina ay lumisay ayaa iyadoo hubta inaanu kolba aanu rumaysanayn shabeelku isaga adkaysatay inaanu runta ka leexleexan wax kastaba haba ahaatee waxay tiri haddii aanu nahay bulshada reer adhi ee aan ku dhex noolahay naguma jiraan wax lab ah oo dhexdeenna ah oo aan ka ahayn baraarka yaryar ee anigu ugu weynahay ee wada dhashay guga markaas adeerka aad sheegayso anigu garan maayo mana aha anigu adeerkay kolay mid xigtadaada ka mid ah ayuunbuu ahaa kii kaliishii dhoweyd oo dhan i caayi jiray sidaas awgeedna ciqaabta dembigaas aniga la iga galay adiga ayaan kaa goynayaa oo aan kuu haystaa markaasuu intuu ku soo booday qabsaday oo cunay neeshii yareed ee dembi laawaha ahayd ee wax ay galabsatay iyo waxa ay geysatay toona aanu jirin haddaba carruurey sheekadani waxay inoo tilmaamaysaa in gardarradu aanu wanaagsanayn isla markaana qof aaban waxba geysan la dul saaray dembi uusan lahayn haddaba carruurey waa inoo sheekada xigta hadduu ilaah yidhaahdo sidaa iyo nabadgelyo